waxay dadku ugu yeeraan daanyeer iyo duurgal halka dariskuna ilmaha yaryar ay ku cabsiyaan gudcurka habeenkii. waxaan ka hadlaynaa wiilkan da'da yar ee 13 jirka ah. muuqaalkiisa cabsida leh iyo jirkiisa antimaha badan waa waxa dhibaatada uu maraya dhaxalsiiyay. waxaan ka sheekayn doonaa sheekada murugada leh ee uu la nool yahay wiilkan iyo cudurka halista ah ee gaaray. wiilkan yar waxa lagu magacaabaa Lalit Baydar. waxa uu ka soo jeedaa dalka Hindiya, gaar ahaan gobolka Madhya Pradesh oo ku yaala bartamaha waddanka Hindiya. waxa uu ku dhashay sidan isaga oo jirkiisu ay buuxiyeen timaha foolka kore kaga yaal. waa sanadkii 2011. naxdin iyo amakaag ayay ku ahayd qoyskiisii dhalay, halka mucjiso iyo waxaan la arag ay ku tilmaameen dariskii ugu dhowaa. Lalit Baydar oo ah wiil yar oo aan qaan gaarin, waxa uu hadda la nool yahay xaaladii uu ku dhashay. jirkiisu iyo madaxiisu oo ay timo buuxiyeen iyo dhaleeceynta asaagiisa oo uusan ka harsan karin xilli walba. waxay ilmuhu ugu yeeraan ama ay ku tilmaamaan daanyeer markii ay arkaan dufta wejigiisa saaran. ma aha kaliya wejiga, laakiin dhammaan jirkiisa oo dhan ayay isqabsadeen timuhu. kuma arki doontid meel aan timo ku oolin korkiisa. mararka qaarna tinta madaxiisa ku taal waxaa ka dherer badan tan qaybaha kale ee jirka ku taal. waraysi laga qaaday waxa uu ku yiri, waxaan rabaa inaan weynaado, waxaana la ii sheegay inaysan suurtagal ahayn inaan isla korno aniga iyo timaha. markasta indhaha ayay iga galaan, markaan wax cunayo waxay iga galaan afka. mararka qaarna waa ay igu adag tahay inaan neefsado, ayuu yiri wiilkan. haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay, waa maxay waxani? ma cudur baa mise waa wax kale? sida la aaminsan yahay, waxaa jira nooc dad ah oo loo yaqaan bone different, taasi oo loola jeedo dad sida ay u dhasheen ay ka duwan tahay sida dadka kale ay ku dhasheen ee dabiiciga ah. laakiin marka laga hadlayo wiilkan, waxa uu wajahayaa xaalad naadir ah oo dunida ka jirta. ma aha cudur halis ah, laakiin waa xaalad loo yaqaan hypertrichosis, taasoo sababta timaha jirka ama xaadda oo si xad dhaaf ah u kororta, isla markaana ku faafta meel kasta oo ka mid ah jirka, xataa wejiga. waana sida wiilkan ku dhacday oo kale. xaaladdan waxa la sheegaa inaysan halis badan lahayn, laakiin waxa ay leedahay xanuun nafsadeed oo shakhsi ah, taasoo qofku uu ka wajahayo dadweynaha. waxaa loola jeedaa in dadku ay ku caayaan ama ay ku dhaleeceeyaan dufta wejiga hore buuxisay. wiilkan oo lagu magacaabo Lalit Baydar waxa uu wajahayaa xaaladdaasi nafsadeed oo qofka ku sababi karta inuu ku dhaco xanuun maskaxeed. dadku waxay ugu yeeraan monkey boy oo ay kala jeedaan wiilka daanyeerka, laakiin waxa uu ka run sheegay in uusan asaagiis ka harin si kasta. dugsiga uu dhigto, deegaanka uu ku nool yahay iyo carruurta uu la dheelo intaba ayaa ah cadowgiisa ugu badan ee ku maadsada marka ay arkaan. xanuunka ay leedahay marka aad ka duwan tahay dadka oo dhan waxaa si dhaba u arkay wiilkan yar ee 13 jirka ah. wax walba xaalad iyo meel loogu talagalay ayay leeyihiin, mar kasta oo ay dhaafaanna waa halis ama xanuun adiga kugu gaar ah. timuhuna waa sidaasi oo kale. bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer gare.